الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد waxaynu ku guda jirnay barnaamijkii aynu ugu magac darnay xanta wariyahana waynu ku hal qabsanay oo kaliya laakiin kelmadeenu waxay ku saabsan tahay cid kasta oo ay khusayso kelmadan waxaynu kaga hadlaynaa isku dirku waxa weeye in dadka war loo kala qaado iyadoo la isku dirayo oo dhexdooda la fasahaadinayo cadaawad iyo urxumana lagu beerayo isku dirku waa dabeecad aad u liidata sharciga iyo caqliguna aanay waafaqaynin waayo waxay keenaysaa fitan dadkii inay isgooyaan oo urxumay isu qaadaan oo dadkii isku duubnaa ay kala tagaan dadkii saaxiibada ay col noqdaan dadkii walaalaha ay kala fogaadaan qofkan dadka isku dirayaana wuxuu ka dhigan yahay sida duqsiga oo kale duqsigaas oo eegta meelaha boogaha ah rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam aad ayuu uga digay in dadka la isku diro xadiidka Abu Hurayra radiyallahu anhu uu warinayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri min sharri an-nas dhul wajhayn dadka ugu sharka badan waxa kamid ah kuwa labada waji leh alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin kaas oo dadka qaar kamid ah waji ugu tagaya kuwa kalena waji kale ugu tagaya yaani laba war oo kala duwan ayuu u kala gudbinaya si ay isugu dhacaan xadiidkaasi waa xadiid saxiixa waxa kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yiri khiyaaru cibaadillahi alladhina idha ru'u dhukra Allah adoomaha ilaahay waxa ugu khayr badan kuwa marka la arko ilaahay la xuso oo la xasuusto waxaana adoomaha ilaahay ugu shar badan kuwa u socodka badan isku dirka ee kala geynaya dadka isjecel ee qofkii berida ahaa ceeb u raadinaya xadiidka al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ayaa warinaya Sheikh al-Albani wuxuu leeyahay waa hasan li ghayri sida ku sugan sahih at-targhib wa tarhib goodi fara badan ayaa u soo arooray qofka dadka isku dira rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yawm al-qiyamati lisanani min nar qofka adduunyada laba waji leh ee dadka isku dira aakhira wuxuu yeelanayaa laba carab oo naara xadiidkaasina waa xadiid saxiixa walaalayaal dadka in la isku diraa waxay keensanaysaa qofka in qabriga lagu cadaabo xadiidka ibn Abbas radiyallahu anhuma uu warinayo wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu soo maray laba qabri markaas wuxuu yiri labada qabri cid ku jirta waa la cadaabaya arrin weyn lagu cadaabi maayo yaani arrin ay ku adkayd inay iska ilaaliyaan lagu cadaabi maayo ee waxa lagu cadaabayaa arrin ay u sahlanayd inay iska ilaaliyaan amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima midkood wuxuu u socon jiray inuu dadka isku diro wa amma al-aakharu fakana la yastatiru min bawli kalabaadna wuxuu ahaa mid aan iska hagaajinin kaadidiisa rawahu al-bukhari wa muslim wuxuu kaloo rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri la yadkhulu al-jannata namam jannada ma galo mid isku diris badani oo dadka isku dira jannada gali maayo tanaha 'ani an-namimati wajtanibha fa inna an-namma yuhbitu kull ajri yuthiru akhu an-namimati kull sharri wa yakshifu lil khalaiqi kull sirri wa yaqtulu nafsahu wa siwahu dhulman wa laysa an-nammu min af'ali hurri ninka gabiya wuxuu leeyahay waxaad ka durugtaa isku dirka oo ka fogow isku dirku wuxuu burinayaa ajarka oo dhan qofka dadka isku dirayaana wuxuu kicinayaa shar dhamaantii waxaanu faydayaa oo uu u muujinayaa dadka sir kasta naftiisa ayuu dilayaa dadka kale nafahoodana wuu dilayaa isku dirkuna ma aha qof xor ah oo sharaf leh wuxuu sameeyo al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wuxuu leeyahay man namma ilayka namma alayk qofka dadka kugu dira ee ku soo jaasuusa adigana wuu ku jaasuusayaa kadibna iyaga ayuu kugu diraya qofka hadaba war loo keeno ee cid kale looga keeno waxa la gudboon inuu lix arimood sameeyo marka koobaad qofka isku dirka wada waa inaanu rumaysanin waayo qofkaasi waa qof faasiq ah oo looga qaateen maaha allahna wuxuu leeyahay
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كو إلهي رمييجو hadduu qof faasiqi war idin soo gaadhsiiyo iska hubiya arrinka labaad ee la gudboon waxa weeye qofkan warka u keenay inuu u nasteexeeyo arrinka saddexaad waxa weeye inuu qofka dadka isku diraya ilaahay daraadii u naco arrinka afraad ee laga doonayaa waxa weeye walaalkiisa ka maqan ee lagu dirayo inaanu xumaan ka malaysanin allah wuxuu leeyahay ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm waxaad ka dheeraataan in fara badan oo malaha ka mid ah malaha qaarkii waa dembi arrinka shanaad ee la gudboon waxa weeye warkaa la soo gaadhsiiyey inaanu ku dhalinin inuu qofkii jaasuuso oo uu hubiyo waxan inay jiraan iyo in kale waayo allah wuxuu leeyahay walaa tajassasu hays jaasuusina arrinka lixaad ee la gudboon waxa weeye ruuxii warka la soo gaadhsiiyey in aanu isaga laftarkiisu isku dir samaynin oo aanu dadka kale u sheegin inuu ninkani diradiraale yahay waxaan ku soo gabagabaynaynaa kelmaddeena qiso aad u la yaab leh xamaad ibnu salima raximahullahu tacaala ayaa wuxuu yidhi nin ayaa wuxuu iibsaday addoonkii markuu iibsaday ayuu ku yidhi ninkii ka iibinayey addoonkani miyuu ceeb leeyahay ninkii iibinayey wuxuu yidhi ceeb ma laha aan ahayn inuu dadka isku diro ninkii addoonkii ayuu iibsaday isku dirkii uu dadka isku dirayeyna waxba kamuu soo qaadin dabadeetana maalin maalmaha ka mid ah ayuu addoonkii ninkii iibsaday xaaskiisa u tegey waxaanu ku yidhi heblaayoy ninkaagu kuma jecla waxaanu doonayaa inuu gabadh kale guursado markaa waan kuu sixrayaa si uu kuu jeclaadee caawa markuu seexdo qadaadkiisa tin iiga soo jar gabadhii run bay moodday haddana ninkii ayuu u tegey wuxuu ku yidhi gabadhaadu saaxiib kale ayay samaysatay waxaanay doonaysaa inay caawa ku disho markaa ha seexan ee waxaad iska dhigtaa sidii wax seexday oo kale si aad u ogaato xaqiiqada dabadeetana ninkii habeenkii wuxuu iska dhigay mid seexday isagoo jiifa ayay gabadhii u soo gashay iyadoo mindi sidata oo doonaysa inay tintii soo goyso dabadeetana ninkii ayaa ku kacay isagoo u malaynaya inay dilayso intuu mindidii ka qaaday ayuu dilay dabadeetana waxaa yimi gabadha tolkeed waxaanay dileen ninkii intaa kadib dagaal ba'an ayaa dhex maray labadii qolo ee ninka iyo xaaskiisu ay ka soo jeedeen dagaalkaas oo keenay in laysku madho taasi walaalayaal waxayna tusinaysaa cidhibta xun ee ay leedahay in dadka laysku diraa iyo inaanay arrin sahlan ahayn rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xadiidka abudardaa radiyallahu canhu uu warinayo alaa ukhbirukum biafdala min darajati asiyaami waasalaah ma idinka warramaa shay ka fadli badan darajada uu helayo qofka soomaya salaadana tukanaya yacni maalintiina soomaya habeenkiina salaad tukanaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay yidhahdeen rasuulkii ilaahay uu nooga warran markaasaa rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi islaaxu daati ilbayn dadka is ah in la heshiisiiyo ayaa soonkaa iyo salaadaaba idinka khayr badan fa inna fasaada daati ilbayn dadka is ah ee is ogol dhexdooda in la fasahaadiyaa hiya alxaaliqa waa tii xiiraysay rasuulku sala allahu calayhi wasallam xadiid kale wuxuu yidhi uma jeedo tinta ayay xiirtaa ee waxaan u jeedaa diinta ayay xiirtaa oo qofka dadka isku diraya wuxuu noqonayaa qof aan diin lahayn marka arrinkaasi aad ayuu khatar badan yahay qof kastoo muslima waxaa la gudboon inuu iska ilaaliyo wallahu aclam wasubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk